سامية شكلنا هي وشكل قصة جعيلة بس وجعيلة دي هراء وقتي دي هراء هذه ويا مركز وقت قاسي ووقت بقرطويو إن أنت غير بقر بهيد أو إن أنت تجرد بهيد رنتي واد وكبر بدن ويلكنا ويلس كذا يرابوها مركز شكل هذه أنت أصلا بلا بس سامية إن ويلكوا حوها ويل حريفة بس أن بقالها يسلي waxaanu dhigan jiray iskuulka dadka taajiriinta ay dhigtaan oo inta badan waxaanu ka warqabnaa in waalidku jecel yahay hadduu fiqir yahay hadduu taajir yahay in ilmihiisu iskuul qaaliya u dhigto marka waxa jirta caqabadaha qaar marka qaar la soo darista dadka aan dhaqaale badan ama taajiriinta ahayn marka ay la lugeeyaan ama ay raacaan ama ay meel la dhigtaan dhibaatooyinka ka soo gaara niyadahan oo qofkii waxyaabo badan aanu awoodin buu ka arkaa meesha markaas inanta iyo inanku isku mid weyn balse isku iskuul bay dhigan jireen inanku waxa uu ahaa inan iska fiqira isla markaasina marka inantu ay iskuulka tagayso saamiye waxa lagu qaadi jiray gaari baari ama gaari baari hadaynu dadka si kale ugu dhigno Itoobiya laga yaqaanayo fardaha lagu xidho gaariga dambe jiitamiya waa intaan gawaadhadan iyo waxba soo bixin gawaadhadan iyo waxba soo bixin waqti hore weeyaan isla markaasina inantii laba ilaaliya hareeraha ka mariyay iyo gaari baariga wada toos baa loo geynayay waxbarashada markay duurkii ka soo noqotana toos baa lagu soo qaaday dad iyagu inta iska fiqirinta iskuulkaasi dhiganaysay oo ka mid ahaa wiilkan inanta jeclaan doona iska soo lugeyn jiray dabeeto kala galaas bay ahaayeen maalin ka mid ah galaaska kale soo bedelanay inanka kadib markuu soo bedesho ay inantii kursiga isku xiga fadhiisanayaan aad bay u kabir badan tahay runtii ma jecla in qofta fiqiir agteeda uu soo fadhiisto waa dayn yar loo kulkuliyo taajir dhalay balse kursigii bay dantu keentay inay wada fadhiistaan samee waxay wax wada dhigtaan ba waxa la soo gaaray waqtigii imtixaanaadka qays waxa lagu yaqaanay ama wiilkan lagu yaqaanay inuu yahay wiil leeneen aad aqoontiisu ay u fiican tahay runtii waxa dhacday in imtixaankii uu kaalinta koobaad u galo dabeeto ardaydii oo dhammaan ay ku doofayso oo markii loo yeero hadiyo fiican la guddoonsiiyo inantina ay iska qoomisay istiraawlahayd kalma sirad galleed haddii wiilkaas ku caawin lahaa dabeeto markii dambe ay u soo dabacday oo xogaa iska wada sheekaysteen markay iska sheekaysteenna maalmihii dambe ay ku tiri waxaan jeclay inaan ku sii qaado oo xaafadda aan ku sii geeyo kadibna qolooyinkii bay ila weyna boqore amar siinaysa inaan kana uu sii raaco marka subaxina oo ku soo marana way soo qaadaan marka waxbarashada laga soo dararana gurigiisa hordhigaan inanku aqal yar cariish bay iska jiraan reerkoodu waana iska dayan imtixaankii baa la soo gaaray weynaa isla markaasina dugsiga sare wada dhigtaan markii imtixaankii la soo gaaray baa inankii hareeraha laga soo yaacay hebelow nacaawiyo waa inay yar xariifayeen hareeraha laga wada yaacay iyadiiba horta wixii ay ka dhineed ka caawiyey iyadoo leefalada dhaxis ka joogtay leefalada sare gashay abeed waa boqorade ilaahay baa boqorey wax fiican hadiyad fiican buu guddoonsiiyey farxad bay reerkoodii ka heshay iyo reyn diinay la kulkulinayo kaalin fiican gashay wad gargarta waxa abeed ka dalbanaysay uu siiyey sheekadu way dheer tahay laakiin aan noo soo gaabiye waxa dhacday inantiina inankii kalgacayl buu qaaday laakiin inankan aan ku sheegayaa qays la yiraahdo asagu maba si danaynayo noloshiisa ku culus oo wuxuu rabaa inuu heer gaaro dabeeto waxba sameeyay hadalku daalinay kalgacaylkii inta markuu qaaday kolba si yar hoose hadiyad uu keento waqtiyada nus saaca oo kale waxa jirta meel laga nus saaciyo uu ka yiri aan jiro uu tagi jiray waqtiyada nus saaca ama galaasku 10 iska qorin jiro oo is mashquulin jiray waxay damacday shandadiisa subaxii markay meesha soo fadhiistaan ama uu yara baxo ama uu su'aale ka yara shaqeyn ka foorarsado bay lacag gurtaa shanadii bili borsay siyaran ma eego soo toddobaad bay ugu ridayso muu bixinba maalintan buuba soo qaljo shandada kala furmso waxoogaa lacag ku jirta lacagtan ilaahay qaadir raxmaan ka ku riday mala maalintii dambe ayuu soo fadhiyo arkay iyadoo uu guriso soo maxaa dhacay markaas tiri waxaan isiri dadkan nusaaceyn hala soo nusaaceeyo inanku kacayo uu ku dhiiradayo waxoogaa kalgacayl waa dhaxmareen jacaylkii waxoogaa markuu dhaxmaray baa inankii waa kala leefal sareeyaan runtii isma higsan karaan
haye asoo wuxuu dareemay in darbi uu dhexdooda yaallo dee aanu awoodahayn markuu arkay heerkay taagantay iyo heerka isagu taagay dadku waxa dhacday asagoo dhinacna ka jecel dhinacna ka niyad jabsan waxa dhacday in iskuulkii iyo wixii la dhameeyo kadibna halkii uu kaalin fiican galo kadibna jaamacad dibadda loo diray wiilkii haye intii uu jaamacadii dibadda ku maqnaa ayaa waxa dhacday wax badan baa isbedelay inanta aabaheed baa dhintay noloshii baa isbedeshay dabeeto dalkii markuu dib ugu soo noqday ayuu inanta Daylan waxa isku dambeysay 4 sanadood ka hor waayo badan baa intii ka dambeeyay meelo badan bay martay duruufo telefoon la iskala hadlaa ma jirin waqti hore ayuu ahaa waqtigii baa isbedelay noloshii isbedeshay inantii baa iyadu dee noqotay jaariyadba reer u shaqaysa kadib waxa dhacday maalmaha ka mid ah buu yimid ninkii oo wax soo bartay shaqo fiican buu helay taajir buu noqday inantii wad oo raadi meel lagu sheegal garan waa inantii markuu meel lagu sheegal garan waayo inantii sidii ku waayay iska guursaday dabata asaga oo aqalkii joogo dee carruur iskalo nin reer loo guursaday waxa dhacday maalmaha ka mid ah iyadoo shaqo doonaysa ay gabadhiisa isbarteen dabta waxa tinaka aniga bay shaqeen duruuf ba ka muuqato waaya haysto inantii ma haba yani shaqadu way dheer tahay laakiin inta nuxur ka soo qaadan loo soo koobana sida ogeed inantii duruuf ka muuqato baahan buu arkay asagu laakiin ma garanayo aqalkay masaxda magacii xataa bedeshay magac kale la baxday iyadu laakiin asaga way garanaysaa la sifto marka xamay laabaan iyadu asaga way garanaysaa waxa dhacda waxa isku yaqaaneen fooriyaro waqtiyada qaar ay isku foori jireen oo khaas ahayd iyaga waa soo koobay sheekadu way si dheeraan lahayd kalgacaylkaas iyo batay berigi waxyaabo badan laakiin wuxuu ka soo koobay bal dubaad nugu yar noqonay marka ma yees jeclaadeen oo xiriir baa dhex maray waqtiga hore mise imika inta isqabeen maya markii hore ay dhalinyarta tahay markii hore waa inay ku xiriir jacayl baa dhex maray oo in kuwa ki keenay baqanayeen intuu inay madaba reer taajiratay in door weyn u dhaxeeyo waa inay ku markaas waxyaabo badan oo markaa ay wada sameyn jireen oo wada ciyaari jireen isku yaqaaneen waxa kamid ahayd foodi u khaas ahayd inankii markii habeenkii ay seexdaan asagii xaaskiisii carruurti oo meynanta ka helin gidaar buu dhaxeeyo qolka kale hurdaay foodidiran bay kaga soundiyo u fadhiistaa نشيط عبد السترشين ملا شيطان بكو مسكريون يسوي سيري مسكسي هذا هذا تنبيه أحد عادي وحاو وقاعدين تدمر كوا وطنطاسي وبلايو يضاق كيك شقين سيسك فوريدو مكاسو طريقة إن هنا تو إن أنتيت مسك شقته وصار نقضه وحلو تنيو بالهبلايو أكود أنت هذي قاسي قاضو حي هبلايو كاره وسي قاضو ميل بدو بكي بط أكتيد واي وحرنيو إن أنت صحسن قلنا قريب لكن فوريدا ميل بقول يقاني سوك هالشيء وسوك بيا مقراص الشيء كذا كدبنا وطورنا ستهايو إن أنت هبلاي يعني برجع ساسو أولا المحك كراعي تدخل حوالي جهنم بعقوبة قريبة هي كراعي أنت عقوبة كراعي يعني نلاش ما كيس بدي شيء يقفكي ها نلاش عبد هاركي سلبة دقلينه ما أنت كون قروح بدن تكون أفرتي سنة وحبرني هي أنتي عروت لها دي لون تايم وقت دار بنقطة مركز دم بوهالك هو قرطاي دي نينكي شورت نحن هبل شورت برا عادي سواء هبلية شورت برا عادي نينكي شورت بقى بصدق هذا مو هبرانين ومو ورانين ده محسب لنا وسوق حي حفظي بكرة وحوجا بيسكت شوكتي وحوجا العجب والسيء نرشي يو وعيه وحوارتك السعري markii dambana de sheekadii uu gabadhiisina uu yeeray meeshii baa la wada fadhiistay sheekadii buu ka sheekeeyay de gabadhiisii markay sheekadii iyo tixtii isku eegtay de way u garawdeen inantani isaga laftiisu de kalgacaylku muusii marana waa kan xasuustay de aakhirkii halkiiba laba ku yeeshay laba halkii uu tii labaadna gabadhii labaadna ku guursaday oo ka rumeeyay jacaylkiisii yaraantii kalantay uu ku rumeeyo waqtigii baa keenay دي من الأسف إسلامنا وكاق بشيء واحد دي وايا اللي هو تطكي هو رمي هاي دي سيستم كان يمكن هذه كان هنا سابضا ما يحيي حيريها نحارب لها صح مركز سابيش كتاس إنكستون سوق هوي وادي الهيسا